kusoo dhawaada shabakada Kacab Media haddii ay tahay markii kugu horeysan soo booqatay fadlan subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub muuqaalkan cusub waxaan ku eegi doonaa fanaanka Qadar Kiyo oo kamid ah fanaaniinta magaalada caasimadda ee Muqdisho muddooyinkii dambe waxaa la sheegayaa in fanaanka codkiisa uu sii nuxusayo haddaba u fiirso heesihii hore ee Qadar Kiyo uu soo qaaday waxay ahaayeen kuwa top 10 isla markaana aad u macquula laakiin markii dambe fanaanka heesiis aad bay u sii nuxusayaan arintan ilaa hadda wax sabab looma hayo hadda heestii ugu dambeysay oo arrimaha ciidanku aadreed oo soo qaaday oo madaxtooyada Soomaaliya ay kala shaqeysay fanaanka codkiisa mawacna fanaanka sidaasna uma qurxana sidoo kale Qadar Kiyo ayaa ku dhaxdhacay balwad is cadeynta sida fanaanka dayaxdan luusho kala ah haddii aan eegno fanaanka dayaxdan luusho ayaa caan ku ahaa is cadeynta in uu is cadeeyo fanaanka dayaxdan luusho marka uu soo gareeyay fanka waxa uu ahaa nin aad u madow laakiin hadda waa dayaxii waxaana arintaas u sababay xaaskiisa oo sidaas oo cadeysay laakiin ninkan Qadar Kiyo leeyahay asigana sidoo kale waa nin markii hore iska normality ahaa sida noo sheegay dad yaqaano oo iska maareen ahaa laakiin muddooyinkii dambe isagana waxa leeyahay si weyn ayuu u isticmaalaa fanaaniinta dayaxdan luusho iyo sidoo kale Qadar Kiyo waxa ay kamid yihiin fanaaniinta u caansan magaalada caasimadda ee Muqdisho kuwaas oo inta badan soo qaaday si kala duwan kuwaas oo dadka intooda badan ay jeclaysteen haddaba fanaanka ayaa maalintii Eid waxa lagu wadaa inuu qabto bandhig faneedkaasi oo lagu kala doono lacag gaaraysa $50 oo dollarka Mareykanka